TV-ga caanka ee laga leeyahay waddanka Kenya ayaa su'aal khadka telefoonku weydiiyey xildhibaankii hore ee baarlamaanka waddanka Kenya Faarax Macalin. Su'aashaasi oo u dhignay maxaa sababay in Soomaaliya xiriirka u jarto Kenya waqti xaadirkan. xildhibaan Faarax Macalin oo su'aashaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu yidhi bal waxaad qiyaastaa dowladda Kenya darisla inay si public ah u tiraahdo doorashada Kenya waxaanu rabnaa inuu soo baxo siyaasi hebel si aanu danaheena uga fushino. waxaad qiyaastaa in governorka Garissa ama Wajeer uu Muqdisho tago isla markaana loo sameeyo casuumad heer dowladeed kadibna loo sheego wixii uu qaban lahaa. xildhibaan Faarax Macalin oo su'aasha jawaabtaasi sii wataaya waxa uu yidhi Kenya intaasi kuma aysan joogsan, waxay casuuntay maamul caalamkii oo dhan aqoonsi u diidan yahay oo looga yahay waxa ka iman kara iyo sababta aqoonsiga loogu diidan yahay, taasoo xadgudub ku ah buu yidhi xildhibaanku madax bannaanida Soomaaliya. ma aqaan cidda maamusha buu yidhi siyaasadda arrimaha dibadda ee Kenya, laakiin waxaa muuqata buu yidhi xildhibaan Faarax Macalin in siyaasadda arrimaha dibadda ee Kenya ay samaynayso xadgudubyo aad u waaweyn kuwaasoo adag tahay buu yidhi xildhibaanku in la xalliyo waqti xaadirkan. xildhibaanka oo su'aasha jawaabtaasi sii wata ayaa waxa uu yidhi haddii aanan dowladaha dariska aynan xushmayn dowladda Kenya iyaguna nama xushmayn doonaan xilligooda. Soomaaliya mar walba waxay rabtay inay xiriirka Kenya wanaajiso, balse dowladdeena Kenya ayaa xiriirka haleynaysa oo xumaynaysay mar walba. kadibna Soomaaliya waxay qaadatay wixii la gudboonaa.